بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي أما داوضيال كسو دواذا سهل سوفتوير كمبنيغا ديارية 10 لحريرة IT-ga iyo businesska. maalin wanaagsan amba habeen wanaagsan. maanta halkan waxaynu ku dhigan doonaa ama isla baran doonaa 10 la xiriira dhanka businesska ama ganacsiga. magaca macalinka waa aniga idila hadlaya Fahad Cabdiraxmaan, company-ga Sahal Software, iyo wixii 10 ee ku saabsan fi course-kan iyo kuwa kaleba waxaad kala socon kartaan website-keena www.sahalsoftware.com. haddaanu u guda galno course-ka aan maanta dhiganayno ama aynu bilaabi doono casharkiisa ugu horeeya waa financial accounting. Chapter 1 Introduction to Accounting. Financial accounting waa course la xiriira xisaabaadka dhinaca ganacsiga. chapter-ka aynu qaadan doonaa waxay hordhaca accounting ama xisaabaadka. chapter-ka intiisa badan wuxuu noqon doonaa theory ama definition erayo aynu qeexi doono oo accounting-kaas aynu fikrad guud uga qaadano. course-kan aynu bilaabi doono. halkan waxaa idiga muuqda learning objectives kamid ah inaynu sharxi karno ama qeexi karno ujeedada accounting-ka. sidoo kale inaynu qeexi karno accounting process wax loo yaqaano. sharaxaad inaan ka bixi karno GAAP oo loo soo gaabiyo GAAP waa maxay saddexda qaybood ee ganacsi u kala baxo marka loo eegayo xagga lahaanshaha iyo dhismaha ganacsiga ama meherad. sidoo kale qaybaha ugu kala baxo ganacsiga iyadoo loo eegayo shaqada ay qabtaan. qodobka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa aynu chapter-kan kaga hadli doono jaanisada u bannaan ee dhanka shaqada qofka accounting-ka barta. waaye haddaynu soo diino waa maxay accounting? What is accounting? Accounting-ku waxa weeye is a language of business. waa luqadda ganacsiga ama ganacsiga guud ahaan caalamka oo dhan uu ku hadlo isku afgarto weeye. saadaradeed luqadan waa inaynu naqaanaa aynu fahanaa si aynu wax uga ogaano dhaqaalaha saameynta uu ku yeelanayo ganacsigaagu. waaye intaas baan kusoo koobi karnaa. waxaan kaloo isweydiinaa ujeedooyinka ama the purpose of accounting. ujeedooyinka accounting-ku maxay tahay waxaan accounting-ka u baraynaa ama u dhigaynaa ama loo sameeyey. waxaa ka mid ah accounting-ku inuu ina siiyo financial information, yani warbixintaas ganacsi oo ah ganacsigaagu hadda meesha uu marayo, current operations and financial condition, iyo sidoo kale xaaladda uu ku sugan yahay ganacsigaagu ama shaqadaadu dhaqaalaha. business to individuals wuxuu siiyaa marka information-ka ama warbixinta shakhsiyaad, agencies, hay'ado, and organizations iyo ururo. يعني information ما كان هلو information كاس وحلا سين دونا شخصيات أما أورو أما هايدو كبس وقات سؤالان شخصيات كم حاكم من أوبا هم وربحنتا جناسية عدة جناسية كلا أو نسبة كم ده managers عدة معمول كجناسية جعنتو كاس حباين information creditors وعدد وحماسة جناسية government agencies كأوبا هم هايدها دولة دسة قيبت عشرات كجناسية حبا أنت هنا information جس عايشة. waxaa kaloo baahan customerskaaga cidda wax ka iibinaysid waa in ganacsigaaga yaqaanaan. information labor unions-ka oo ah ururada shaqaalaha iyana waxay u baahan yihiin all need account information. dhammaantood waxay u baahan yihiin warbixin xisaabeed. sidaa daraadeed ayaa ujeedada aynu u barayno accounting-ka. waayahay waxaynu soo sheegnay accounting process inuu jiro marka aynu financial accounting-ka barayno ama aynu xisaabinayno. accounting is a system of gathering financial information about the business and reporting this information to users. Horta account waxaanina waa in la helo ama la soo aruuriyo system soo aruurinaya warbixinta dhaqaale ee ganacsi uu leeyahay kadibna
warbixinta wuxuu siinayaa userska cidda isticmaalaysa ee u baahan ee ganacsiga faraha kula jirta ama uu saameynta ku leeyahay. haddaba si taa loo helo waxaa laga maarmaanaya 6 major steps. 6 waxaa jirta talaabo waaweyn oo ah in la maro oo kala ah analyzing in la soo aruuriyo ama la indhaindheeyo, recording in la diiwaan geliyo dhacdooyinkii ganacsigaas, classifying in loo kala qaybiyo waxa la yiraahdo ablayn wixii aan intii islaba la israaciyo, summarizing in la soo koobo, reporting in laga daayo report ama warbixin, and interpreting oo qodobka ugu dambeeya in la turjumo shaygii. dhammaantood mid baan u dhigan doonaa. sawirka xagga hoose naga muuqda waa stepskii sida isugu xigaan ay u kala horeeyaan. waayahay haddii aan degdegayo waxaad samayn kartaa fiidiyoga waa joojisan kartaa, waa boost baad odhan kartaa, markaasaad si fiican u akhrisan kartaa adigu, maadaama aan doonayo inuu fiidiyogeennu uu time yar ahaada si aanu oo nagu sanaato hadhowto inaan internetka aan gelin karno oo cid kasta ay la socon karto cashar ka faa'iideysan karto.